su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan haddii Etoobiyaanka ay ka baxaan Soomaaliya ma laga yaabaa inuu civil war ka dhaco walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Sahal maayo Soomaaliyu midda ay soo martay ama dhibaatada la soo maray mar haddii Etoobiyaanku ay ka baxaan waddanka dabcan waxaan qiyaasayaa in caqligu tali doono leesu tanaasuli doono mushaakilka iyo dhibaatadii macnaha Soomaaliyu ay sanadkan soo martayna in dabcan lagu quus qaadan doono sababtu waxa waaye mushaakil waa dhici jiray laakiin midda dhacday mid aad u dambeeyay waxaan aaminsanahay in caqligu uu tali doono taasaan aaminsanahay waa haddii la helo xukun islaami ah sababtu waxay tahay oontaa u leeyahay 6 bilood oo la soo maray maamulka islaamiga ah oo jiray wax civil war ee dhacay ma jiraan sababtuna waxay tahay Soomaalidu waxa ay aaminsan yihiin ama ay ku kala dambeeyaan waa shariicada islaamka ayaa miday karta ummadda Soomaaliyeed mana u maleynayo wax civil war inay dhacayaan haddii xukun islaami uu yimaado meesha